Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal beeleed maanta ka dhacay deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Binaandheer oo u dhow caasimadda Dhuusamareeb, waxa uuna socday muddo saacado ah. Dagaalkan ayaa ka dhashay muran la xiriira dhul halkaasi ku yaal oo ay isku haysteen labada beelood, waxaana dagaalkani ku dhintay ku dhowaad 5 qof halka intaasi tiro ka badanna ay ku dhaawacmeen, sida ay noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka oo aan la xiriirnay. ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa isugu jiray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayid ah, waxaana ka mid ah dadkaasi nabadoon Cabdiweli Daahir Tuuxow oo ku dhintay isagoo dhexdhexaadinaya beelaha halkaasi ku dagaalamayay. Xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan, waxaana goobta lagu dagaalamay gaaray ciidamo dheeraad ah oo u jiray maamulka Galmudug si ay u kala dhex galaan maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamaya. Deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud waxaa ka taagan dhowr aag beeleed oo ay isku dagaalamayaan maleeshiyo beeleedyo kala duwan kuwaas oo isku haysta dhul daaqsimeed. Deegaanada ay colaadu ka taagan tahay isla markaana la isku horfadhiyo waxaa ka mid ah deegaano hoostaga degmada Balambal iyo sidoo kale dhanka deegaanka Qaayib ee bariga gobolka Galgaduud, iyadoona saacad kasta laga cabsi qabo in halkaasi ka dhacaan dagaal beeleedyo. deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa haatan wajahaya colaad adag oo u dhexeeya beelaha halkaasi wadaaga, iyagoona saameyn weyn ku yeeshay isku socodka dadka degan deegaanada Galmudug. Xukuumadii kala duwanaa ee soo maray deegaanada Galmudug ayaan ku guuleysan in ay xaliyaan colaadahan soo laabtay ee ka taagan deegaanada Galmudug, iyadoo aysan jirin wax rajo ah oo dadka reer Galmudug ay ka qabaan inay helaan nabad iyo amni buuxa.